السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waa Software College Online Department yani waa jaamacad Wad Nuur oo idin dhigay luqadda Ingiriisiga hadii la yiraahdo luqadda Ingiriisiga hadda hore waxaa idin dhigi jiray macallin Maxamed Xasan Xaaji insha Allah halkii uu ku joojiyay ayaan ka sii wadayaa ama barta ku joogay ayaan ka sii bilaabayaa laakiin fiidiyogani waa fiidiyo soo introduction ama hordhac ah luqadda Ingiriisiga oo soo ka sheekeynaya hababka ama qaabka luqadda Ingiriisiga loo baran karo iyo waxyaalaha soo wajaha dadka luqadda baranaya iyo caqabadaha ku yimaada fiidiyogan isagu waxaan u talagalay kaliya dadka luqadda Ingiriisiga baranaya inay fahmaan hababka iyo qaababka ay luqadda u baran karayaan ee u sahlan ayaan ugu talagalay insha Allah waxaan jecelahay marka dadkaas inay ka faa'iideystaan qaababkan oo ay isticmaalaan waana iyo wax sheeg weeyaan dadka luqadda baranaya ayuu tahay waliba marka qof walba ku baranayo waxa loo baahan yahay hababkan uu sheegi doono ama qaabkan uu ku sheegi doono insha Allah hadii la yiraahdo inaad raacdid oo ah qaab ku anfici doona dadka luqadda baranaysa marka video introduction ka video introduction waxaan uga bilaabmaya halkan inooga bilaabmaya waxaan ugu horeeyaa waxa la yiri before our topic we need to answer this question inta ayna bilaabin mawduucana ama mawduucana ka hor waxaan u baahanahay ka jawaabno su'aalahan su'aasha koowaad ee oranaysa what do I need for a language luqad maxaan uga baahnaa luqadanu how can we learn English language sidee baan u baran karnaa luqadda Ingiriisiga su'aasha saddexaad ee oranaysa why do we learn English language for a long period of time su'aasha koowaad ku noqono oo ah what do I need for a language maxaan luqad uga baahnaa horta luqad maxay ku tartaa adiga faa'iido maxaad luqad ka faa'iideysaa maxay ku taraysaa faa'iido ku fadhidaa waxaan luqad markaad faa'iido fahanteen ama aad garatid faa'iidada luqad ay ku leedahay ayaad luqad barashadeeda ama baran kartaa ama barashada baranaysaa markaas ayaad baran karaysaa marka haddii noqono luqad faa'iido inoo leedahay waxa weeyaan luqad koow qofku inuu xog ku soo bandhigo xog uu marka hayo inuu ku bandhigo inuu xog uu rabay ku helo oo uu xog ku helo ama uu ku fahmo inuu dad ku fahmo inuu dad wax ugu sheego inuu dad wax sheegaya uu fahmo kuwa waxa ka mid waxyaalaha faa'iidada ee luqadda u baahan tahay haddaadan luqad aqoonin ama aadan luqad ku hadlin dad ma fahmi karaysid ama dad wax ma sheegi kartid ama dad laba noocan karaysid dadku waxay ku wada nool yihiin oo ay ku wada joogaan waa luqad dad kastaana luqad bileeyeen qof aan luqad lahayn caalamka ma joogo kuma noola haddaba qof markuu luqad koowaad baranayo luqadiisa koowaad ama luqadda waddankiisa koowaad laga hadlo ama luqadda markuu dhasho ka bacdi uu barto luqadda qofku dhibaato kulmo isagan ogeyn mu bartaa dadku waxay dhibaatooyin iyo carqalado iyo kala kulmaan cawaaqib luqadda labaad markay baranayaan ama luqadooda luqadaha markay baranayaan sanadkan hadda luqadda Ingiriisiga waxay noqotay luqadda lagu barashada badan yahay ama dadka adduunka jooga ay luqadda ugu badan yihiin ee la yaqaan ama dadku ay bartaan adduunka meel kastaana waa laga hadlaa ama waa laga bartaa marka luqaddu waa luqadda Ingiriisiga marka dadku markay baranayaan waxyaalo badan bay la kulmaan ama dhibaatooyin badan bay kala kulmaan marka bal si aynu dhibaatooyinka uga badbaadno dadkeena hadda raba inay bartaan baynu doonaynaa inaan ka shaqeyno bal qofku baran karayo si uu luqadda u baran karayo inaan ka shaqeyno su'aasha labaad ee oranaysa how can we learn English language oo ah qaabkeen luqadda Ingiriisiga u baran karnaa ama sidee u baran karnaa luqadda Ingiriisiga loo baran karaa siyaabo badan loo baran karayaa waxyaalaha ugu muhiimsan luqadda waxa ugu muhiimsan marka luqad aad isticmaalaysid luqadeeda waa afka laga hadlo oo afka laga hadlo maaha wax gacmaha laga isticmaalo wax lugaha laga isticmaalo wax madaxa laga isticmaalo maaha test kaliya afka laga isticmaalo qof hadal ku hornaa waa inta marka luqadda waa inta maadaama luqadda inta tahay dadku wax ugu muhiimsan waxa weeye marka luqad baranayaan inay sameeyaan waa inay ku hadlaan ama waa inay afka isticmaalaan laakiin tabdaro iyo aqoon darro darteed dadku ma afka ma isticmaalaan waxay isticmaalaan gacanta waxun bay qoraan waxana waa akhriyaan luqaddu muhiimadeeda koobaad ama waxa la siinayo mudnaanta koobaad maaha akhris iyo waxa loo yaqaano qoraal waa qofku inuu dhageysto iyo inuu qofku ku hadlo labadaas ayaa ugu muhiimsan oo loo baahan yahay qofku markuu luqad baranayo inuu labada diiradda saaro ama uu ahmiyad saaro ama labada uu si gaar ah u weerayo wayba gaar ahaan markuu qofku luqadda baranayo waa inuu speaking-ka iyo ku hadalka waxa loo yaqaano uu aad u weeraya si gaar ah iyaga u weeraya ayaa loo baahan yahay luqadda waxaad baranaysid kow luqadda waa inaad ku hadasho waa isticmaashid ereygaad baratid waa inaad isticmaashid su'aasha saddexaad oranaysa why do we learn English language for a long period of time luqadda maxaan u baranaa muddo aad u dheer
waxaanu baranaa dariiqada aanu mar lahayn baan ay qaldantaa ama hababkii luqadda aanu baran lahayn ayaynu khaladnaa oo habab kale oo aanu u baahnayn ayaynu u baranaa luqadda lama barto sida cilmiga kale lama barto haddaan cilmi baranayo cilmiga computer hadaan baranayo dee maaha inaan maanta afka dalmo dhaho computer waxa taabanaysaa button hebel waxa taabanaysaa button ka kada taabanaysaa hadaan dhaho waxa la xan computer ka fahmi jirto haddii aan button farta saarin oo aan kan baa taabanaysaa taas jiraysaa hadaan arag luqaduna maaha inaad farta ku qortid maaha waa lidkeeda waa afka saas samee ana eriga tiraadida weeyaan waa afka tiraadida waa isku lid marka haddii aan sida computer ama on baran lahaa hadaan luqad u barto mushkilad bay noqonaysaa marka cilmiga kale si loo barto luqad loo barto luqadda kaliya waxa laga isticmaalaa waa afka tada bulshada Soomaaliyeed ama dadka luqadda ay kala kulmaan dhibaatooyin ama baran kari waayaan wax kale maaha kaliya wax khaldan dariiqadii loo baahnaa inay ku hadlaan ama ay isticmaalaan afka oo ay luqadii practice gareeyaan baysan sameeynin waxay sameeyaan kaliya way qoraan buugga ka buuxiyaan oo qofku dee marka luqad baranaysa luqaddu buug ma baahna inaad ku qorto wax kaliya waxa baahan tahay inaad practice ereygaad soo baratid ba inaad afka tiraahdo ku hadasho oo ku dartid ereyada isticmaalaysid maalin kasta dadkaas samaysid hab yar oo fudud oo kooban baa markaa u baranaysaa laakiin haddii aan waan intaan soo qaato buug oo meel dheer ereygaan maqlo ku buuga ku qoro dee buuggu hadhowto qalbigayga maaha oo dadkii ila tegi maayo marka qof la hadlayo buugga ila hadli maayo buugga wax ku qoran way ku qoran xakaa iska wallayaan uu ka lumi karaa way waay kartaa marka sanad kala socdo markaad luqad baranaysid maaha inaad luqadaada buug ka buuxisid ama computer ku shubatid ama meel kale magaranaysaa ku deersid maaha kaliya waxa loo baahan yahay waxa weeye inaad isticmaashid ereyga aad afka ka isticmaashid oo qof ku hadashid oo aad dhahdid baa loo baahan yahay waxa ugu muhiimsan waa taas haddaba balaagno fideogana learn a new language bale is not a matter of awareness of rules barashada luqad cusub maaha qofku inuu kasbado erayo iyo shuruuc iyo qawaaniin cusub and building up a large vocabulary ama uu dhiso ereyadiisa oo kordhiyo ereyadiisa maaha markaad luqad cusub baranaysid oo luqad hore taqaanay inaad shuruuc iyo qawaaniin iyo xeelad casad raadsid lama baahna kaliya waxa loo baahan yahay luqadda waa baranaysaa practice ereyga sidoo practice tusaale ahaan haddii anigu aan maanta soo barto ereyga boy oo wiil ah aan soo barto oo aan buug ku nood gareeyo ama warqad ku qoro oo aan xaafad iskala aado xaafadii aan geeyo buugga xaafadda aan dhigo xaafad aan suuq iska aado ereyga wiil maxay yiri weeyada la igu dhaho qaar maanta soo dhigtay buugay ku taal waan ilaaw waan oranaya haddii laakiin aan isticmaal lahaa oo aan markii la dhigay markii ku xigtay markii waan practice garan lahaa oo aan isticmaal lahaa oo aan dhina boy waxa la wiil boy maxaa la wiil maxaa la boy waa maxay waa wiil ama se luqadda Soomaaliga waan aqaanaa Ingiriiska ma aqaanin laakiin luqadda Soomaaliga iyo wax ku practice garanaya ereygii aan soo bartay waan ku practice garanaya ama isku isticmaalaya waxaan leeyahay kaasi waa boy kan waa boy anigu boy baan ahay halka boy baa maray boy baa meelaha marmaraya boy baa soo socda boy baa imanaya boy baa sameeyay boy baa bisad dilay loo boy baa istilaya taasoo u isticmaal karaa ama practice garan karaa ereygii markaan ereyga barto haddii halka ereyga kaliya barto haddii ereyga saas isticmaalo ereyga luqad ahaan baan u hirgeliyay laakiin haddaan ku qoro buug ahaan luqad ahaan uma hirgelin ereygaasina luqad ahaan aan fahmaayo waxna ay tarmaayo luqadna ay maaha waxa la wixii tirayaan jirto marka luqaddu markaad baranaysid waa ku hadal kan soo luqad the teacher should not be directed at informing his students about the language macalinka juhdigiisa iyo dadaalkiisu maaha kaliya inay ku wajahnaadaan qofku macalinku inuu ardayga uga sheego ama uu baro luqadda ka baro maaha dadaalkiisu inta ku wajahnaada maaha ee waxaa loo baahan yahay but enabling them to use it inuu u ogolaado inay isticmaalaan luqadda inuu isticmaalsiiyo oo luqadii uu baray ama uu dhigay inuu u ogolaado inay isticmaalaan ama inuu isticmaalsiiyo oo ku qalqalay inay isticmaalaan oo ka kasbado inay luqadda ku hadlaan oo afka ka dhahan waxay barteen a student's master of language is ultimately measured by how well he can use it not how much he knows about it cabirka lagu cabirayo qof ama arday luqad heerkiisa luqadeed maaha in lagu cabiro how much he knows about it intee lagu yaqaanaa lagu cabiri maayo waxa lagu cabirayaa how well he can use it intee lagu isticmaal karaa qofkan luqadda qofka uu yaqaanaa hay yaqaan intee ka isticmaal karayaa xogaab ka isticmaal kara xogaas ka yaqaanaa marka intuu ka yaqaan ee bugaag iyo gidaaro iyo meel ugu qorqoran kama yaqaano ka yaqaana inta marka uu tuucano isticmaalo
واستعمال كرايو كواد كرايو أنت أقول كي يقام معك كم يقام وحي كروا بيعلن شيء and صراحة لأن اللانجوج بالي برشلونة اللغة الإسلامية وحويا child الماير trying to سود إنه فريستو creep ترجورتو stand استاجو walk صعدو finally run and finally run وضمن وردبا and مركا مهمته حويا قف اللغة بركو برانيا ما هو ورثة وفرد عصو قف وفرد برانيا ما نفهم بك اللغة ما خد برانيا فرد برتا سكلمها قف كانوا حدوني صعد إنه توجد دنيا سوما هذا اللغة الناس في عقد هدون السوما مركا يسوق برص الصومرة فرديا برجورشة استاجدة مركا دمر هذا قاعدين صومرة أنا برص أنا صبرتنا عسكر مرسا خدنا عسكر مرسا مركا اللغة خالص مركا بعد غض وقوات كانسا وحبدي كرميسي لكن هذا ما كان حولي كيلو داس كأمس صوت وحنا ما أوران كرو حنا كم هذا كرو وهذا كات شوكتيد تبرها تشوف سويلك لكن ذات مركز تكون الكروي عاد اسكو خسبتيد عاد أريضة خسب كتير هديد عاد أري خسبت اسكو خسبتيد أو اسكو قارسيد وأري عاد بهديد سخف بين صوت وصوت هذا عاد بهديد كبعد واحد إيمان يستا أمام نقول يستا قف هذا كرادو مركز مهمة الكروي هو ترايل اسكو ضي الناس كذي اللي تنادي اسكو ضي However, the test tries after a few days, and كبعد ما كنت المهير ما كنت مدير كبعد يسكت you will see it working. ما المركب بعد هرسة سوى لغنا يا بني كيراي ما عندي تفرقة ترقوها. I'm running. تبتنور ديبا. Maybe you are sure it cannot be happening without trying. وحاه بالا وأدور اختواتها إن أركز تكون عدين trial لأنتي أما يسكت لأنتي تكون عدين. يسكت لأنتي أركز مرة عدين. هذا يسقط كذا يسكت إنه الصعدة موسى صعدين. هذا يسكت إنه يسرقه موسى سرقين. هذا يسكت إنه يستاجر موسى يستاجر. هذا يسكت إنه أتقاها شو كذا الميس. هذا يسكت إنه لغة استعمال شو هذا هو لغة ما استعمال كريس. مركب ورث لغة استعمال إرجع برتد استعمال كو حاول إنت أورن كريس ده لو تنادوا you will be فلونا. قطنا هنا صار لغة كو هذا كريس استعمال كريس لغة دي أيون نقطي لغة سعادة. برشاد اللغة دي بقى واسدة أضو باسكيل فولايا أما قاعد كحينايا مركب ما هو رأيه بقى اللي باسكيل كواس فوشا وخصوص عضاء واس فوشا وخصوص عضاء وخصوص عضاء كبعد نحن نقطع ماستر في بقول نقطع خبير بقول نقطع لين اللي قلت بقى برشاد اللغة دي is like riding a bicycle وقف كله فوشين هاي وكر أما فولايا باسكيل or driving a car أما قاعد كحينايا the first days you ride the bicycle and fall on the ground. ما أنت كمان ما هكوبات أما ما هو ورثة بس يكتب فرصة وكسر عيسى and write it back وترد برضو فرصة مكتوب على you do so again and again سواء حطوا صار منه مربط تصل من مربط فرصة وكسر عيسى وفرصة وكسر عيسى but finally you become a master of it لكن قدامك هتكون ورثة خبير وحيد الله قدم جاي ودولة هذا الإنسان قفات شراء باورته كحية تقف باسكيل وده سنين سنة واحدة for مدير قف خطوب شو ضيانو برتو وبران كريا لكن ما هو نبغى كلا كل مياه إنه دعوة إنه يوح قارن إنه تخرمه إنه نروح حسوا قارن all these things عيا مركا وحلا all these things come with trial لما نبغى وحيالها إن صار شغلنا لأن حيكون يعني وحلا يقعنا trial يسقط and learn a language برشادة اللغة دينا is not exception ما هم متكهريسا يعني هي دون الترايل بيوبانتا ترايل كده واحد كانوا حسيتوا إنك حسيتوا مع باسكيل اللغة دنا وحسيتوا هنا تكون هذا الشيء لأنه وكاسة باسكيل تلوك حينسا the expertise بالله خبرات of English language اللغة بالإنجليزي واحد هان you can learn English language with 3W اللغة بالإنجليزي واحد خبران كده سحلوه كان 3W أما 6W هاي كريهين whoever wherever واحد لو يقال whenever W and whoever you meet try to speak English with him قف كست أو add لكل أنت لغة الإنجليزية كلها حيكون سهل تمر كده وتنا بلغة الإنجليزية easily أو فضول أو نحسب بدن أو برد أنا لك رقم and the بريد اللي بعده حوالي wherever you are مال كست أتوتي try to speak English اسكت دينا الإنجليزي كذا شو إيش لو كملت تشوف الإنجليزي كذا and تينا صدحات أمرويس تعلم حوالي whenever possible مركزت أي معقول كون وتنا كذا شيء
try to speak English isku day inaad Ingiriis ku hadasho isku day weli waxaan qaadana waa hadal waxaa loo oran waaya qoraalku waxba ku anfici maayo dadku hadal kareen grammarka iyo barashadiisu luqadda Ingiriisiga mudnaanta koobaad ma leh ama luqadda dhanba inaad marka hore naxwaha baratid mudnaan ma laha marka waa in luqadda wax ka baratid at least luqadda ka baratid hadii marka luqadda baratid aad wax ku hadashid baa grammar baanaysaa sababtoo grammarku wuxuu ka caawiyaa kaliya waxa loo yaqaan waxa ku hadlaysid inay sax iyo inay khalad yihiin ka caawinaya wax kale ka caawin maayo marka hadii aadan waxba ku hadal karin wuxuu ka caawiyaa grammar waxba kuma hadal kartid aad ku hadlaysaa khalad sax wuxuu doonaha noqday bal marka wax uu grammar ka caawiyo ku hadal markaas baad grammar baantaa oo waxaan ku hadalto makhdaxba ma khalad ba. And when you are going to speak a language, the following organs, which ones to use? So I loo baahan ka jawaabtiin qofku marka uu doonayo inuu luqadda barto ama inuu luqad ku hadlo baan leeyahay xubnaha soo socda kuwa buu isticmaalaya waxa gacmaha isticmaalaysaa mindhaha isticmaalaysaa midhaha isticmaali afka isticmaali laba kamid isticmaalaysaa iyo CD oo dhigaha iyo afka isticmaalaysaa su'aashan idinka hadii baahan ka jawaabtaan jawaabta su'aashana waxay ku xiran tahay inaad fahamtid barashada luqadda qaabka u fudan barka inaad ka fahamtid ku xiran tahay marka waxa la these organs ka xubnahani are directly related waxay si toos xiriir u leeyihiin to four basic language skills waxa loo yaqaan four basic language skills baynu dib ku arki doonaa and you can learn English language through a four basic language skills luqadda Ingiriisiga wax baran kartaa waxa loo yaqaano adoo isticmaalaya four basic language skills waxa loo yaqaano listening speaking reading and writing. Listening can ignore. It has the first priority of learning a language. dhageysigu wuxuu leeyahay waxa loo yaqaan mudnaanta koobaad ee barashada luqadda marka luqad baranaysid waxa mudnaanta koobaad iska horta dhageysi oo dhageysigu u leeyahay hadaadan wax maqlin ma waxbaad garanaysaa may hadaadan wax maqlin waxba ka jawaabinaysaa may marka hore ereyga maqal markaad maqato fahan marka ereyga dheh marka afartan waxay kala go'an yihiin oo kala go'an yihiin listeningka iyo speakingka iyo readingka writingku labada sare waxay kuwa kale uga go'an yihiin oo uga yar fog yihiin way ka muhiimsan yihiin labadan dambana iyagana waa loo baahan yahay laakiin sida labada loogu baahan yahay sare looguma baahna oo speaking iyo listeningku luqadda way ka kaafin karayaan labada quraab ka kaafin karayaan luqad ku kaafin karayaan sababta readingka iyo writingka inta qof oo luqad isticmaala ama luqad ku hadla baan waxna qorin waxna aqrin malaayiin weeyaan laakiin qof aan hadlin luqad kuma hadlo qof aan dhiga qabina luqad kuma hadlo oo waa taqaan qof uu dhiga yahay inuu faraha tago oo luqadda isticmaalo luqad kale oo nooc kale isticmaalo laakiin labadaasi waa laga maarmaan labadan kalena waa muhiim laakiin waxay muhiim yihiin qof markuu baranayo luqad labaad oo kale inuu qofku qoro kale wax oo sababta hadee qofku markuu luqadda labaad baranayo inuu wax noodgaliyo u baahan yahay inuu wax qoro u baahan yahay inuu ereyo macno u baahan yahay marka ayagu waxay muhiimad u leeyihiin ama u fiican yihiin qofku markuu luqadda labaad baranayo halka labada koobaad ay mar kastaaba ayagu muhiimad gaar leeyihiin mar kastaaba marka luqad baranaysid labadaasi waa laga maarmaan ku hadalka iyo dhageysigu waa laga maarmaan dhageysigu waa leeyahay is the most important factor of learning language waa qodobka ugu muhiimsan ee barashada luqadda waxa loo yaqaan listening speaking waxa weeyaan bal is the second most important one isna waa ka labaad ee ugu muhiimsan and it is waxana weeyaan bal the one which allows you to speak a language and communicate with others speakingku waa ka ku ogolaanaya bal adiga inaad luqad ku hadashid kuna sahlay inaad dad la xidhiidhid dadka kale la xidhiidhid xog dadka la wadaagtid xogta dadka u bandhigtid waa speaking ku sahlaya reading and writing bal labadana are good for second language iyagu waxay u fiican yihiin qofku markuu luqadaha labaad baranayo and for file literacy ama qofku markuu xoolo dheeraad ah noocaas u doonayo raadiyo and speaking is good way to learn a language speaking is better than the other ways to learn a language speaking is the best of all ku hadalku waa hab wanaagsan luqad loo baran karo ku hadalku waa hab ka wanaagsan hab kale luqad aad baran karaysid ku hadalku waa wax ugu wanaagsan ama ugu wanaagsan luqad baran karaysid ayakana ama videogana introduction-ka intaas ayuu inoo yahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad idinku waaninaya oo idin sheegaya markaad luqad baranaysid inaad ku hadashid luqad haddaadan ku hadlin luqad ma taqaan barashada luqadi waa ku hadal sababtoo ah luqadda marka qofka luqad la qiimeynayo ama qofka luqadda laga cabirayo
سنهرس شغنا قفك waxa lagu cabirayaa wuxuu ka isticmaal karayaa luqad waxaad ku leedahay oo aad luqada ku leedahay kaliya waxaad ka isticmaal kartaa afka koran kartaa baad ku leedahay insha Allah hadii la yiraahdo waxaynu kasaan baqaadayna 10ka macsaadana hadii ilaahay awood la idmo barti macallinkeena hore inuu joojiyay Maxamed Xasan Xaaji inuu ka soo wadi doonaa bidin ilaahay hadii la yiraahdo videogan introduction kana ka soo yoono waa kaanay hadii la yiraahdo وبالله التوفيق